رحمة الله وبركاته أصحابي dhammaan waa idin salaamnay walaalaha Soomaaliyeed ee degan waaxiga magaalada Nijmegen iyo tuulooyinka ku xeeranba waxaan la hadlayaa waa Cabdulle Faadan iyo walaalkeen Ismaaciil Maxamed oo halkan agtiida jooga waxyaalaha rabnay inaan idin cadeyno waxay tahay magaalada waxaan ka qaadnaa lacag contribution oo aan ugu magac darnay dhiso markaskaaga oo ah inaad dhisato markaskaaga in anaga wax yeelano waxaana waa dan guud waa dan gaar maahan qof kasta Soomaaliyeed mucaarad iyo muxaafid ba xaq uu leeyahay wana meel mustaqbalka isticmaali doono ama 5 qol ha noqoto ama 10 qol ha noqoto wax alla waxay noqoto intaas kadib su'aalo badan ay dadka isweydiinayaan lacagtan la qaaday maxay tahay ujeedada loo qaaday maxay tahay marka Ismaaciil السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسماعيل محمود الله إن شاء الله حاجة جوجا عبد اللطيف أستاذ والله لعقت القاضي إن شاء الله وحويا مال إن شاء الله الصومالي دسكلا هاي أيا لقو قاضي لعقت إن شاء الله وحويا مركز كاجا لسوق كم قاعدين بروجيكا وبلا إن شاء الله يمكن وحولنا دور بلود marka lacagtaas la qaaday dadka qaar waxay leeyihiin dana gaar ma lagu qabanayaa lacagta xaflada lagu qabsanayaa ciidaha ma lagu qabanayaa lacagtaas maxaa aan ku jawaabeynaa isleedahay marka والله هذا صفعا كوما قال جوابته حويا ميا because سببته حويا ولا لوي قصندن أم بلعكتن الأروريو وحلو قلت لك إن شاء الله الله بقول أم بمل صومالدو إن شاء الله في سبيل الله دليرتو جبي يري وين شكوي مدان لو قلت كدو لشكو أركو حاجة وكبلا وإن شاء الله maadaama aan sida walaalkeen uu tilmaamay ba ujeedada waxa way lacagtan laguma qabanayo xaflad mamnuuc ah ka tahay laguma qaban doono in contribution kale lagu bixiyo qof dhinta ka duugi mayno laakiin waxa aan ka bixinayna waxay tahay lacagtan waa dhisid la dhisayo markaska dabcan macno badan uu leeyahay markaska waa qayb masaajid noqonaysa qayb dadka ay community-ga ay fadhiistaan odayaasha dhalinyarada waa yeelada caruurta dumarka qof kastaba baahida jirta markaas ay ku xashadaan waa meel Soomaali leedahay meel alla meesha caalamka yimaado waxay noqonaysaa masaajidkii Soomaalida halkaas ku yaala ayay noqonaysaa marka walaaladeyda waxa uu yar qiimaha la bixinayo isleeyahay qof walba wixii awoodiisu kaga qayb qaadan horta waxa waa sadaqo mise waa lacag gooni ah jirta Ismaaciil oo la goynay والله لعق قوني للشو لما شيء قف كسب جيب كيس أسجاس أوك إن شاء الله وغيران وطمن إيرو قفك وحيك بحكرة في سبيل الله marka dadka qaar ilaahay dartiis maadaama wax baxsanay dadka wax laga qaarin dhahan maxaa loo gooyo 10 wax badan ma tarta runtii laakiin ka badan baynu rajaynaynaa hadayna isu tagno oo 10 eerba isu geeyno waxbay noqonaysaa ilaahayna waxaan ka rajaynaa qof kasta oo ajaladan dhageysta su'aalo ka qabo la soo weydiin karaa waxaad nagala soo xiriiri kartaa www.skn.org ama www.skn.org aad leedahay walaalaha dhammaan marka wixii su'aalaha halkaas noogu soo dir telefonka contactiga wasaariyo waad arki doontaa telefonkaas text message oo ku soo diri kartaa ujeedada waxay tahay inaynu wax yeelana intaasinu joognaa waxaynu yeelana dulsaar baynu nahay waad ogtiin walaalaheena Marookaanka masaajiday sameysteen waxbay sameysteen iyagoo aragtidooda kala duwan haddana anaga maxaa diiday inaan wax qabsana wax diida ma lahan waxa waaye yeen isku mashquulin qofka kale ku mashquulin ee hala qabto qofka wax qabanaya qofku doon ha noqdo hala taageero qof kasto magaalada la yimaada inuu wax dhisa inaynu wax dhisayno la taageerno aynu diidno inaynu wax dumina marka Ismaaciil aan ku soo gabagabeyn insha Allah kelimadaada u dambaysa إن شاء الله سيدو عبد اللطيف وشاقي وحويا سايت هو www.sskn.org nogmaals www.sskn.org أفولون ديسك دليل الصومالي وحونا كسو قبل إن شاء الله فيما أحسن مستقبل إنك مستقبل كماشن اللي وحليها إن شاء الله سودو هذا كعنفرا صدر نمبر كواد كاركسين إن شاء الله سايت كواد كاركسين سو قرطة الله سو حريرة وما تتي ونيل معنين إن شاء الله عدد بدنتين ونسود وين إن شاء الله